وزير جوري وزارة ورشدها Somaliland Engineer أحمد علي وبحل التلفزيون العالمي وأريال كلها اللي الدجاجة قبل كبوه اللي أياكها الله حالة دعبارته قبل هذا بريق Somaliland أزيد وكله وحبا قدري الشعب كقبل هذا بريق أسلوب الحكومة دي وصار يسمى مدحوين موسى بيحي وحنو عرب ككل فتاي إن حكومة مدحوين موسى بيحي صار يسير مدة بقول عشة جارية بل سأنا يدقدقي Soomaali bariga Somaliland waqti laga baqayo hadda in abaaro ama dadku ay werwer u ka hayo in abaarihii marka la soo noqdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa inuu farash khayr qabo iyo roob raxmaad qabo oo Ilaahay u shubo arinta labaad aan doonayay inaan xuso waxa weeye dadka deegaanku wax muddo inuu xoogaa yara buuq ama xant ay jirto waxaan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo dawladdu 100 maalmood ma jirin oo 100 maalmood wali ma gaarin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dawladda xisbiga kulmiye ka samaysantayna ballanqaadyo fara badan bay fulisay qaaday ballanqaadyadii ay qaadayna wali waqti ay fuliso may gaarin laakiin hawsheedii bay ku jirtaa deegaankan ka soo jeedana waxaan leeyahay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta inoo ah wasiir waa nin caaqila waa nin suldaana waa nin wasiir maanta jaga balaaran fadhiya waa nin ka adag xilka reerka metelina kara reeraha dhamaantood marka ma qabo horta halka in xilinaga maqan yahay oo insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sida wax loo qaybiyay ninkii ugu haboonaaba wax inoogu dhiibay insha Allah ta'ala isaguna si wanaagsan buu xumaarayn doonaa waqtigeedana waynu sugaynaa dawladana 100 maalmood wali ma jirsan hore weeyay waqti hal la siiyo xaaladaha ku xeeran madaxweynaha waxaad moodaa in waqtigeena doorashada ku jirnaa in barnaamijkeenu ahay in maanta oo biri ka fiican macnaha biri maanta ka fiican laakiin madaxweynihii iyo dawladdii hadii lagu mashquuliyay in qof waliba doono inuu isaga la shiro arko madaxweyne waqti uma helayo oo arrimihii kale ee dalka xal kaga gaaro marka waxaan jecelahay in madaxweynaha iyo dawladda waqti loo siiyo inay arrimaha dalka yaala iyo horumarkii dalka aynu hore u dhaqaaqi lahayn halkeenu shalay joognay ka dhaqaaqi lahayn in waqti loo siiyo inta taa la gaarayo oo aynu qof waliba waxay la tahay uu heli doonaa waxa uu doonayay laakiin yaan madaxweynihii laga mashquulin danihii ummaddu caamka u lahayd oo dan shakhsiga lagu mashquulin waxaan leeyahay Ilaahayna gargaaro waxaynu liibaan gaaraynaa markaynu isu garawno waxaynu horumar gaaraynaa markaynu wada shaqeyno leebadii sicir bararka iyo uu keenay oo shaqadeeda dawladda haysta jirta wax badan baa isbedeli doona samirna hal la yimaado madaxweynaha iyo dawladdiisana waqti hal la siiyo cid sad ka maqan filaysa inuu sad ka maqan yahayna ha ku qanacdo inaanay waqtigii sadka la dooni lahaa aanay ahayn ee qof waliba gaarkiisa meel isu taagi lahaa ummaddu maca jamaaci wax ku wada qabsataa waxaan leeyahay dadka deegaankayga aan ka imi intaanu soo wada hadalnay inteena dhimanna waxaan gaarsiinayaa in aan sad inaga maqan oo maanta aynu u baroor diiqna aanu jirin waxaan ku qancinayaa deegaankan ka soo jeedo oo campaignkii ololaha doorashada qayb lixaadle iyo qayb libaaxba ka qaatay xoolo ku bixiyay anti ku bixiyay waqti geliyay runtii aad iyo aad u dadaalay waxaan ku qancinayaa inay deelay weydiiyo maxaa dawladda aynu uga mid noqon weynaa ama qaarkeen uga mid noqon waayeen waxaan ku qancinayaa waynu ka mid noqon doonaa dawladdu maalin lama wada dhiso maanta waxaan anigu shakhsiyan ku faraxsanahay in kooxda dawladda ka samaysmatay 90% ay asxaabtidii yihiin rag aanu wada shaqeynay ama isgaranayno in tacabkii aynu gelinay iyo sidaynu isu muujinay in laynooga cawil celiyo waynu heli doonaa qofku noqon doonana Ilaahay subhanahu wa ta'ala og anna ku dudi maayo mid kale oo ku dudayana ma ogi xaaladda abaaraheed waxiga weydiisay waxaan aad iyo aad u jecelahay dawladdana ugu baaqaya iyo hay'adaha samafalka iyo dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala samafal sameeyo laakiin yaani in cid loo diro soo asas gareysa xaaladdu sida ay tahay siyaasi Axmed Cali Ubaxle ayaa isagu noqonaya shakhsi waqti iyo dadaal badan galiyay waqtigii xisbiga talada dalka ay kulmiyeen la campaign ku jiray isagoona ka ololeynayay gobolada Saraad iyo Buuhoodle waa yaal ciga Bukhari Ariel TV Buuhoodle